waxaanu ku jirnaa isbuucii ay dowladdii hantiwadaagga ahayd la wareegtay Soomaaliya 1969. waxaanu eegi doonaa waxqabadkii dowladdii hantiwadaagga ahayd iyo taariikh nololeedkii Sareeya Gaas Jaalle Maxamed Siyaad Barre. dadku waa kala aragti doonaan karaan, saasoo ay tahayna waxaa habboon in qof walba lagu ixtiraamo fikirkiisa. inta aanan gelin barnaamijka, fadlan gaarsii asxaabtaada adigoo isla markaana noo sheergaraynaya barnaamijkeena. waad mahadsan tahay walaal. Maxamed Siyaad Barre waxa uu dhashay 6 bishii Oktoobar sanadkii 1910. aabihii iyo hooyadii Shaqlaan Warfaa waxay reemiyi ku ahaayeen degmada Laasgacal ee gobolka Ceelgaab, taasoo hadda hoos tagta gobolka Shilaabo ee deegaanka Soomaali Galbeed. nolosha adag ee reemiyiga ayaa ka dhigtay yaraantiisii nin adag. Maxamed aabihiis iyo walaalkiis waxay dhinteen isagoo jira 10 sano. dagaaladii dheeraa ee isticmaarka, taasoo mararka qaar isku bedeli jirtay isku dhaca qabiilada Soomaaliyeed. taasi ayaa la yiri in ay si weyn u bedeshay Siyaad Barre sida uu u fakaro. Barre ayaa inta badan noloshiisii hore u hibeeyay waxbarashada caadiga ah iyo mid uu asaga isbaray, isagoonan weli aanan ka harin in uu maalin uun helo waxbarasho heer sare ah. waxa uu ogoon noqday isagoo jira 10 sano. waxa uu iskuulka hoose ku soo qaatay magaalada Luuq, taasoo ka tirsanaan jirtay xilligaas gobolka Jubbada Dhexe. isla magaaladaas ayuu ku dhigtay dugsiga Quraanka Kariimka. dadka qaar ayaa qaba in uu ku dhashay Maxamed Siyaad Barre magaalada Garbaharey ee caasimadda gobolka Gado, taasoo horay uga tirsanaan jirtay gobolka Jubbada Dhexe. laakiin waxaa gadaal laga ogaaday in Garbaharey uu ku qortay dhalashadiisa si uu ugu biiro ciidamadii Soomaalida ahayd uu hogaaminayo isticmaarka Talyaaniga iyo Ingiriiska. sababtoo ah isticmaarka ma aysan ogoleen Soomaalida ku dhalatay meel ka baxsan Jamhuuriyadda Soomaaliya inay ku biiraan ciidamadaasi. dabayaaqadii 1930 ayuu ku biiray ciidamadii la oran jiray Zabtiyah uu hogaaminayay isticmaarkii Talyaaniga. markiisii ugu horeysay asagoo da'yar ayuu ka qayb qaatay dagaal u dhaxeeyay gumaysiga Talyaaniga iyo Itoobiya, kaasoo isticmaarka ay ku doonayeen in ay ku qabsadaan dalka Itoobiya. Maxamed Siyaad Barre oo markaasi ahaa nin dhalinyaro ah ayaa soo bandhigay in uu leeyahay firfircooni xirfadda dagaalka iyo tan hoggaanka ah. waxa uu dib ugu laabtay waxbarashadiisii si uu u dhamaysto aqoonta dugsiga sare. sanadkii 1941 isagoo 20 jir ah ayaa waxa uu ku biiray ciidamada booliska, kuwaasoo hoos tagayay isticmaarkii Ingiriiska oo haystay Soomaaliya bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka. waxa uu u safray magaalada Kijaaba oo markaasi ahayd xarunta tababarka booliska Kenya. isticmaarka Ingiriiska ayaa la dhacay tababarkiisa, ayagoo isla markaana damcay in ay u magacaabaan madaxa ciidamada dambi baarista kuwaasoo ay tababarayeen. bartamihii 40meeyada ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho, halkaasoo uu markii ugu dambeysay ku nagaaday. 1950 waxa uu suura gashay in uu helo darajada ugu sarreysa oo qof Soomaaliya helo, taasoo ah taliyaha kormeerka booliska. 1952 Siyaad Barre iyo asxaabtiisa booliska ay ka wada tirsanayeen ayaa loo qaaday dalka Italiya, ayagoo markaa ku biiray xerada Military Academy of Modena, halkaasoo uu ku soo bartay maamulka iyo luqadaha, isagoo horay ugu hadli jiray luqadda afka Soomaaliga, Ingiriiska, Talyaaniga iyo Sawaaxiliga. waxaa loo dalacsiiyey ku-xigeen sarreeya guud kadib markii uu soo dhammaystay tababarkiisa. waxaa loo dhiibay taliyaha booliska 1955, hal sano kadib markii uu ku soo dhammaystay tababarkiisa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. kadib waxaa loo qaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho, halkaasoo uu hogaaminayay ciidamada amniga iyo agaasimayaasha booliska Talyaaniga. 1958 waxa uu qaatay darajada generaal. Maxamed Siyaad Barre oo lagu naanaysi jiray afweyne ayaa loo magacaabay taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka ka hor madax bannaanidii Jamhuuriyadda Soomaaliya 1960. Siyaad Barre ayay aad u xusugelisay qaabdowladeedka antiwadaagga ee ururka Soofiyeedka. kadib mar uu tababar la sameynayay saraakiil ka tirsan Soofiyeedka, Jaalle Siyaad Barre ayaa aaminsanaa qaabdowladeedka antiwadaagga ah iyo wadaninimo aad u adag oo ku qotanta Soomaalinimo. dhammaadkii 60meeyadii kadib doorashooyinkii dabajoogga ahaa, ciidamada militariga ayaa u ekaa kuwa kaliya ee ka badbaaday musuqa iyo wax isdabamarinta baaneed ee ka jirtay hay-adaha dowladda xilligaasi. ciidamada booliska ayaa ahaa ururkii ugu horreeyay oo la Soomaaliyeeyo xilligii xukunka isticmaarka. sidoo kale xornimadii ka hor waxaa gebi ahaanba lagu wareejiyey hoggaanka ciidanka saraakiil Soomaali ah, kuwaasoo kala ah Generaal Daa'uud iyo Generaal Maxamed Siyaad Barre. ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa isla markiiba yeeshay sumcad aad u wanaagsan 10kii sano ee ugu horeysay oo ay jirtay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Siyaad Barre ayaa ugu dambeyntii qabtay hoggaanka sare ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kadib geeridii ku timid
allah u naxariistay aabihii booliiska Soomaaliya Generaal Daawud Cabdulla Xirsi oo ku geeriyooday magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Isdhexgalka wanaagsan ee u dhaxeeyay ciidamada booliiska iyo militariga ayaa keentay in ay la yimaadaan barnaamijyo wacyigelinta dadweynaha ah, barnaamijyada iskaa wax u qabso iyo isdhexgalka bulshada, taasoo ay ku fashilmeen xukuumaddii xilligaasi, taasoo keentay in shacabka Soomaaliyeed ay ka helaan kalsooni buuxda. 1964 Jaalle Maxamed Siyaad Barre mar uu waraysi siiyay wargeys ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa la weydiiyay in ciidanka xoogga dalka ay rabaan in ay afgambiyaan dowladdii shacabka ahayd. Waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay isku arkaan inay yihiin kuwa u adeega shacabka kaliya, ma ahan in ay ilaaliyaan xuduudaha, balse waxa ay ka taageeraan shacabkooda siyaasadooda iyo horumarinta dhaqaalahooda. isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu soo hadal qaaday maamulkii SYL, taasoo uu ku eedeeyay nin jeclaysi iyo musuqmaasuq ba'an. wuxuu yidhi qofkii doonaya inuu dadka ku sii hayo faqriga iyo jahliga waa cadowgeena. dowladdii xilligaasi ayaa waxa ahayd dowlad aad u tabaryar, waxa u dheereed musuqmaasuq iyo foodo. amniga iyo xasiloonida ayaa farahooda ka baxay. dagaal joogto ah ayay qabaa'ilada ka dhex aloolsamay, heer ay gaartay in laba beelood ay ku dhex dagaalamaan caasimadda. taasi waxaa dheereed musuqmaasuqii oo gaaray meel sare, heer warqadihii doorashooyinkii dhacay 64 ilaa 69 lagu shubto, gaar ahaan uu ku shubto ururkii SYL. nasiib darro 15 Oktoobar 1969 madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake oo booqasho ku jooga waqooyiga Soomaaliya oo ay xilligaasi ka jirtay abaar ba'an ayaa waxaa ku toogtay magaalada Laascaanood askari ka tirsan ilaaladiisa. xilligaas oo ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Cigaal uu ku maqnaa booqasho uu ku joogay dalka Mareykanka, iyadoo baarlamaanka iyo xubnaha ka tirsan xukuumadda ay isku maandaafeen ciddii bedeli lahayd madaxweynihii la dilay. 21 Oktoobar 1969 ayaa dabaabaadka ciidanka xoogga dalka lagu arkay laamiyada magaalada Muqdisho, ayagoo isla markaana la wareegay xafiisyada dowladda. habeennimo Isniin ah oo ay ka hadleen Radio Muqdisho, saraakiishii la wareegtay dalka ayaa waxa ay sheegeen in ay dalku ku qabsadeen afgembi, ayagoo ka badbaadinaya musuqmaasuq iyo dowladdii ku fashilantay u adeegidda shacabka Soomaaliyeed. magaalada Muqdisho ayay ku soo rogeen bandow soconayay inta u dhaxaysa 4 galabnimo ilaa 10 subaxnimo. ciidamada xoogga dalka ayaa amar loo siiyey in ay baaraan baabuurta iyo meel walbo ay ka shakiyaan. kalfadhigii ugu horreeyey oo ay yeeshaan saraakiishii qabsatay waddanka toddobaad kadib 1 Novembar 1969 dastuurka ayay ilaaleen, baarlamaankana waa la kala diray, dhammaan xisbiyada siyaasadeedna waa la mamnuucay. kadibna waxaa la baabi'iyey maxkamaddii sare. dalka waxaa laga beddelay magacii hore, waxaana loo bixiyey Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya. halkaasi waxaa lagu yaagleelay shantii golaha sare, isla markaana waxaa loo igmaday inuu hogaamiyo sarreeyagaas Jaalle Maxamed Siyaad Barre. afgembigii loogu mujaxaabiyey dowladdii musuqmaasuqa dilowday ayaa shacabka Soomaaliyeed ay ku soo dhoweeyeen caleemo qoyan iyo reenreen, ayagoo aad u bogaadiyey tallaabadii ay qaadeen ciidanka xoogga dalka. waxaa lagu xasuustaa jacaylka ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, oraahdii uu ka tiriyey allah u naxariista abwaan Cali Sugalle. haddii xalay 9kii xilkastii noo dhawaaqay oo maanta xoogga haysta, xamdi ilaahay weeye. sidoo kale Saciid Maxamed Saciid Harwa ayaa alifay heestii ahayd Towrada tan barakaysan. Jaalle Maxamed Siyaad Barre waraysigiisii koowaad ee uu siiyo laanta af Soomaaliga ee BBC-da waxaa ka qaaday Cabdullaahi Xaaji. waxa uuna weydiiyey goormaad xiriyihiinna ku laabanaysaan ood xukunka ku soo celinaysaan shacabka. waxa uuna ugu jawaabay sida tan: waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeralayda iyo dadka shicbi weynaha ah iyo askarta, inay dad isku dada yihiin laba midab ayaan kala lahayn bay annaga nala tahay. hase yeeshee meesha Soomaalidu amay waajib ay u tahay inay ka fiirsataa, amaan annaguba hadda aan qabno in laga fiirsadaa inay tahay war ninkaa aynu hawsha u dhiibanay ma nin ikhlaasaha oo si fiican noogu shaqaynayo, caadilnimo noogu shaqaynaya, dhibkanagu is dhibkiisa yahay, dantanada annagoon ogay nooga shaqaynaya, soo waa nin khatalaya.
oo xoolaha naga xadahaya oo beera nagu dul samaysanaya oo daara nagu dul dhisanaya oo qaraabo kiil samaynayo dad xigaala ah meel ka buuxsanaya soo waa nin daacadaho xuquuqda jecel iyo horowkaca ummadda kulligeedoo idil marka xukumkii anagu waxaan isleenahay hadda yaa haya yani matal xukum caskariya baatiri anigu ma yahay anigu waagi hore askari ahaan jirta haddaan laygu tilmaamayn intiisi kale yaa haya soo dadka dhallinyarada mutacalimiinta oo raacida oo dalka joogay soo ma hayaanin haddaba se waxaan leeyahay midaad ujeeddo waa garanaya election goormaad samaynaysaan ayaad ileedahay taasaad u socotaan xaggiina saas baa looga fakaraya waxaanu samayn doonaa markii dadku uu haddaba heer fiican buu ismarahayaaye ay maskaxdiisu ay sida aan u sheegayay ay u noqoto mid Soomaali ikhlaasa Jaale Maxamed Siyaad Barre oo aaminsanaa qaab dawladeedka hanti wadaagga ayaa isla markiiba bilaabay dadaal ah in uu abuuro dawlad iyo bulsho hanti wadaag ah ayaa waxa uu la yimid erayo ku cusub Soomaalida xilligaasi kuwaasoo kala ah jaale guulwade iyo erayo kale badan ganacsiyo waaweyn beero bangiyada shirkadaha caymiska iyo beeraha loo isticmaalo qaybinta saliidda ayaa la qarameeyay taasoo qayb ka ahayd fikirkii hanti wadaagga ee Jaale Maxamed Siyaad Barre dawladdii kacaanka ayaa isla markiiba bilowday in ay hirgeliso mashaariic iyo dib u dhiska dalka shaqo abuuris iyo wax soo saarka dalka mashruucii beeraleyda iyo la dagaalanka abaaraha waxyaabihii lagu xasuusto ee waxqabadka dawladdii kacaanka ayaa ah mashruucii bacaadcelinta ee Shalambood xilligaas oo uu bacaadka ku hayay qatar wadooyinka iyo dhul beeraleyda dawladdii hanti wadaagga ahayd ayaa ku guuleysatay inay dib u celiso 100,000 oo hektar oo bacaad ah iyadoon uga baahnayn gacan wadamo shisheeye waxaa kaloo ka mid ahaa waxqabadkii dawladdii kacaanka 1974 ilaa iyo 1975 abaartii dabadheer taasoo ku dhufatay gobolada waqooyi dawladdii hanti wadaagga ahayd ayaa ku guuleysatay in ay ka soo qaadaan 90,000 oo qof kuwaasoo ay dejiyeen xeryo dib u dejin ah oo loogu magac daray dan wadaag xeryahaasi oo laga hirgeliyay gobolada jubbooyinka ayagoo isla markaana u tababaray dadkaasi qaabka loo beerto iyo la soo bixidda kalluunka si kor loogu qaado heerka aqoonta shacabka Soomaaliyeed ayuu golaha sare ee kacaanka waxa uu sameeyay barnaamijyo ballaaran oo howlaha guud ah waxa uuna si guul leh u fuliyay ololihii bar ama baro ee reemiyiga Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu bilaabay barnaamij uu ku qarameynayo ganacsiga iyo dhulka iyadoo siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladda cusub ay diiradda saartay xiriirka taariikhiga ah iyo midda diiniga oo ay Soomaaliya la lahayd dalalka Carabta taasi waxa ay keentay in Soomaaliya ugu dambeyntii ku biirto jaamacadda Carabta 1974 Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu madax ka noqday ururka midowga Afrika taasoo ilaa iyo hadda Barre ka dhigaysa Soomaaligii ugu horeeyay uguna dambeeyay oo hogaamiye ururka midowga Afrika Jaale Maxamed Siyaad Barre kama uu shaqaynaynin in Soomaaliya kaliya uu hormariyo balse waxa uu ahaa nin ay ku dheer tahay Afrikaanimada sanadkii 1972 kadib markii ay jabhadda qabsatay dalka Uganda kuwaasoo taageero ka helayay dawladda Tanzania Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa u ruqaansaday magaalada Kampala si uu u dhaxdhaxaadiyo labada dawladood taasoo uu ku soo guuleystay dawladda Uganda ayaa ku maamustay Jaale Maxamed Siyaad Barre ayagoo isla markaana ugu magac daray waddo ka mid ah wadooyinkooda dagaalkii qaboobaa ee adduunka ee u dhaxeeyay midowga Soviet iyo Mareykanka ayaa sahmeyn weyn ku yeeshay Soomaaliya kadib dagaalkii 77ka dagaalkii u dhaxeeyay Itoobiya iyo Soomaaliya ciidanka xoogga dalka oo ay hogaaminayeen generaalo khibrad heer sare leh ayaa ku guuleystay inay qabsadaan Ogaadeniya ururkii midowga Soviet oo Soomaaliya kaga digay inay soo galaan Itoobiya kadib markii Soomaaliya ay xiriir la yeelatay Mareykanka ayaa Itoobiya u soo gargaaray ayagoo isla markaana wadamadii ku buhoobay shuruucnimada u soo direen ciidamo iyo hub wadamadaasi waxaa ka mid ahaa Cuba iyo Yemen kuwaasoo ku guuleystay inay dib u celiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya niyadjabkii maamulka hanti wadaagga ayaa sii xoogaystay waxaa ku timid dhaqaale xumo oo ay keentay dagaalkii 77ka maamulkii Barre waxa uu bilaabay inuu baacsado saraakiisha dawladda iyo ciidamo kuwaasoo lagu tuhmayay inay ku lug lahaayeen isku daygii afkambiga ee dhacsoobay 1978 inta badan dadka lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen ayaa xabsiga la dhigay
si kastaba ha ahaatee mas-uuliyiin badan ayaa ku guulaystay inay u guuraan dalka dibaddiisa, waxa ayna aasaaseen kooxo ku midoobay in ay meesha ka saaraan dowladdii kacaanka. kooxahaasi oo kala ahaa SNM, USC, SSDF, SBM, kuwaasoo taageero ka helayay dowladda Itoobiya, ayaa ku guulaystay in ay meesha ka saaraan dowladdii kacaanka. Maxamed Siyaad Barre waxa uu u guuray dalka Kenya kadibna dalka Nigeria, halkaasoo uu ugu dhintay wadno xanuun isagoo jira 80 sano. dowladdii kacaanka marka ay meesha ka baxday, Soomaaliya waxa ay qaaday wadadii burburka, waxaa faraha la darsaday dhiig iyo dhimasho aanan kala go' lahayn, kufsi iyo boobka hantida dadweynaha. waxa ay gaartay heer la fiiqdo fiilooyinka korontada. ilaa iyo hadda Soomaaliya waa ay ku kala qaybsan tahay Jaale Maxamed Siyaad Barre, balse waxaan la dafari karin ayaa ah ma jiro qof Soomaaliya oo qabtay inta uu qabtay 20 sano ee uu xilka hayay. haddii shalay Maxamed Siyaad Barre lagu tuuray inuu qabiilaysta yahay, ma waxaad noogu bedesheen in SNM oo noqotay hal qabiil ay xukunto waqooyiga Soomaaliya, mise hal qabiil oo ka mid ah SSDF ay xukunto gobollada Bari iyo Mudug, mise in Al-Shabaab ay leyso maatada Soomaaliyeed, mise in Kenya iyo Itoobiya ay iska duqeeyaan hooyooyinka Soomaaliyeed iyo carruurta Soomaaliyeed. siday doontaba ha noqotee 32 sano kadib Soomaaliya ma u darsatay dowladdii kacaanka mise way ka raysatay? sidee ay kula tahay?